habeen hore uga wada hadli jirnay amba aynu isku naqaan. Markaynu badsanay isticmaalka social media, aynu dhinac walba u dabaalanay, nolosheennu u dhaxaysay inaynu soo toosno, kadibna aynu taleefanka ku waabarisanno. Markaan sii seexayna wixii ugu dambeysay aynu eegno ay noqoto taleefanka, nolosheennu waxay noqotay inaynu isweyno. Qof kasta oo inaga mid ah, dhalinyarteena inta u badan ilaa maasha Allah mooyaane, way wada mareen xaaladdan. Adiga laftarkaaga waa dhici karta inaad xaaladdan aragtay. Markastoo aynu badsano taleefanka isticmaalkiisa, waxaa kugu dhici doontaa amba inagu dhacdayba inaynu isweyno. Haddaba qofku waa xaalad ka mid ah xaaladaha uu maro, si ahaan marka dhalinyarnimada dhexe oo soo galo. Mararka qaar baa dhici karta inaad isweydaba amba aad noqotidba meel noloshaadu ay socoto, wax waad soo toosisaa, shalay maantay la mid tahay, circle yar ayay ku wareegtaa. Haddaba maanta waxaan isku dayi doonaa bal inaynu ka wada sheekeysano mowduuc aan ahayn wixii hore aynu ka wada hadli jirnay oo kale, sidoo kale aan ahayn mowduuc aan u meeldayaga iska wada sheekaysi caadiga ah. Waxaan cuskanayaa buug halkan horteeda yaalla oo kanu ka mid yahay, iyo sidoo kale buuggan xilkaas iyo maxay ahayd tole kuwan laftarkooda kan laftarkiisana qaybo ka mid ah ayaan maxay ahayd tole u adeegsanayaa iyo kaa laftarkiisaba. haddaynu mawduuca gudaha u dhow horseyn dul istaagna wax weeyaan amba iswaayin nolosheena markay u dhaxayso labada fiid hawl ayaa la yidhahdaa subaxa hore iyo habeenkiiba markay u dhaxayso taleefan kadibna taleefankaas keliyana waxaynu u isticmaalnaa amba adapter garaynaa inaynu markasta ka helo dopaminku waa qanjidh laga soo daayo dheecaankaasoo sameeya farqadda markastoo qofku uu dareemo in wax cusub hantay sidoo kale dopamine iyo nicotine labada qanjidh waxay soo daayeen laba dheecaan oo qofka maskaxdiisa amba dareenadiisa farxad geliya markastaad hawl aad dhabtid garaysay aad u dhexqaatid hawshiina qabatid dopaminkaaga ayaa lasoo fasaxaa haddaba xilliyada dopaminkana hello markaan isticmaalna taleefanada waxaa ka mid oo kale statuskaa soo dhigtay fariin kadibna dad badan baa kusoo jawaabay dad baa replay ka heshay dopamine baad helaysaa waxaad dareemaysaa inaad waxaan soo dhigtay la xiiseeyey kadibna beritoole sidiisa laagaad samaynaysaa wixii wax ka xiisa badan ee raadinaysa soo dhigtay statuska waxaa la dhahaa dadka sirkhaansan qofku markuu sirkhaansay sababtu qofku u farxo waxaa khalkhalkaa qanjirkaas dheecaanka doominka soo daaya kadibna qofku waa kaas isku qastaayay iska damaashaadaya haddaba intaynaan ku dheeraan horta waxaan ka hadlaynaa saddex qodob baan rabnaa inaan ka hadlo qodobka ugu horreeya oo ah inay su-aal iska weydiino adiga naftaada qofka tahay oo ah iswaayidayna ciwaanka uga dhignay horta intaad weli soo kacday subax soo toostay adoo caafimaad qaba alxamdulilah ma isweydiisay su-aashan ma isweydiiso intaad meel soo istaagtay amba miyaaro istaag amba caadi ahaantaada u istaago weli ma isweydiisay adigu kuma tahay adigaagan adiga ah kuma tahay bal su-aashan haddii aan isweydiin iminkay sir weydiin laftarkayga aan ku weydiiyo adigu kuma tahay adiga muuqaalka daawanaya sheegaya waxaad igu jawaabi doontaa anigu waxaan ahay hebel magacaaga oo saddexan u sheegaya magacaaga oo saddexan mid turjumayo amba adiga kuma damaanad qaadayo nin barofesor oo maalinta keligii hore dhegeysanaya wuxuu dhahayay magaca qofka haddii uu qofku leeyahay anigu waxaan ahay hebel magacu waa sifo ay kuula bixeen waalidkaagu si ay kuugu yeedhaan marka aad sii jidid oo kale amba dee dadka kale kaaga yeedhmadaada uga socnaato dadka kale qof baatay waa la simantay laakiinse magacu waa sifo yeedhmo geedka magac baa la dhahdaa geer magacay leeyihiin hasha wata magac gooniya loo bixiya midaac baa loo bixiyaa kadibna waa loo yeedha way soo jeestaa magacu markaa adiga kuma qeexayo bal adigoo aan odhanay anigu hebel baan adigu maxaa tahay su-aashaas ma isweydiisay sidoo kale weli intaad soo kacday adigoo adiga ah ma isweydiisay maxaan u noolahay maxaan qabtaa shalay maxaad maanta kaga duwan tahay bal u fiirso nolosheennu marka aynu dhalinyarta nahay haddii aad shaqaysay dee waxbarasho dhigatid labada isku midaan kasoo qaadayna waxay u dhexaysaa saddex kees bay u dhexaysaa waa soo toostay waxbarashadii ama shaqadii waa qabatay waad soo noqotay waad seexatay haddana waad toostay intii shalay ayuun baad samaynaysaa markastoo noloshaadu seerkalkaaga waa markastoo isku mid noqonayaan shalay iyo maantaada waxaana kuu soo kordhinayso u dhici kartaa waxbarashada horta waa hami waa meel loo socdo laakiinse markaad tahay qof suuq qabanaya soo noqonaya seexanaya shalay aan waxba kaga duwanin wax aqriyin ayay noloshaada xaggee socotaa waxaa jirta aragti ay dhahdaan shibri theory aragtida xerada riyaha waad aragtay inta badan iyadoo meelaha laga sheekeynayo inaad maqasheen baa fileya wax badan uga noqon maayo laakiinse waxaynu ka helnay horta iswaayida marar badan naasooyin waan arkay laga tirinayo qof inuu iswaayo isagu hawsha ugu adag ee qofka maraan waxa waa inuu naftiisa barto qofka naftiisa bartay ayuunbaa sheegi kara ka hadlo oon dul istaagno waxa weeyaan maxaynu ka baqnaa dadka kale falcelintooda alkhawfu min rafdi al-aakhariin buuggan ku jira buuggan waxaa qoray doctor maxamed ibraahim jalasaad nafsiya la yidhahdaa haddaba waxaan dul istaagi doonaa maxaynu ka baqnaa dadka kale falcelintooda
maxaynu uga baqnaa falcelinta dadka kale? Maxaynu ugu qasbaya inaynu ka baaqano waxay hadhow inagu odhan doonaan? Maxaynu nafahooda ugu horumarnaa nafaheenna inagoo rabna inaynu raali gelino iyaga ka hor intaynaan nafteenna raali gelin? Tani waxay u eg tahay mid laynagu soo barbaariyey. ilaa yaraanteennii waxaa laynu odhan jiray cuncunadan si aad u noqotid mid qurux badan, dadkuna kuu arkaan inaad tahay mid qurux badan. casharadaada qayb si aanay dadku kuu caayin. xidho maradan qurux badan si aad dadka u cajab gelisid. dhammaan cibaarooyinkan waxaa laynagu odhan jiray yaraanteen intuba waxay u noqonayaan dadka kale, laakiinse marnaba laynaguma odhan jirin samee waxan si aad mustaqbalka waxaad u noqonid. laakiinse markasta waxaa laynagu dhahayay ficilkan samee si ay dadka kale kuugu arkaan qof fiican. tixgelinta ay nafteenna ka horraysiinayno nafaaka inagoo ka baqana inay nagaga falceliyaan falcelin foolxun waxay sababtaa inaynu bixino dhibirsanaan aad u fara badan, inaynu noqono dad u dibacsan iyaga laakiinseena u adag. nafteenna ayaynu kadib dhiganaa kadib markaynu fahooqada qanacno. tanna waxay keentaa inagoo ka baqayna waxaa la yidhaahdo anaaniya, inaad noqotid qof yidhaahda aniga adigoo taa ka ordaya ayaa waxay sababtaa inay noqono qof dadka kale u dhibirsan nafaha kale naftiisana u xun. waa muhiim inay kuu kala miisaanaato xaqa ay naftaada kugu leedahay iyo xaqa ay nafaha kale kugu leeyihiin. waa muhiim inaad mararka qaar tiraahdid maya, mararka qaarna aad tiraahdid haa, si aanad u noqon dameer dheen raacday. nabiyullaahi maxamed naxariis inay ugarkiisa ahaatee waa kii lahaa inna linafsika calayka xaqan, naftaadu waxay kugu leedahay xaq. waxaa jira qaacidooyin inta badan la isticmaalo oo la yidhaahdo shul statement, qaacidooyinka isku waajibinta. waa qaacidooyin adigu aad naftaada ku waajibinaysid kuna la xisaabtamaysid naftaada iyo nafaha kale si aanay kuugu xadgudbin adiga laftarkaaguna aanad naftaada ugu xadgudbin. ka hadalno waxaynu kasoo xigan doonaa dhulkan xilkaas waxa weeyaan mudnaanta sii wixii mudan. mahmaha ayaa odhanaysa haddaad laba bakeyle caarsatid isku mar midna ma qabad. haddii wax walba mudnaan iyo qiimo isku mid ah la siiyo waxay la mid tahay inaan shayna mudnaan lahayn. si aynu maalmaheena u isticmaalno ayaa dabcan ah si aynu nolosheedna guud ahaanba uga faa'iidaysano. haddii maalin walba kaa khasaarto noloshu way kaa khasaartay. haddii aad u nooshay si aan abaabulnayn waxay aad ugu dhowdahay inay maalin waliba kaa khasaarto. 55 kun oo hogaamiye oo kala matalayo kumanaan shirkadood oo kala degan 100 waddan oo daraasad cilmi baadhiseed lagu sameeyey. 67% oo ka mid ah hogaamiyaasha waxay ku sifeeyeen maskaxdooda mid cakiran oo isku booqsan. xaaladan oo macnaheedu yahay madaxdan waxaa ku adkaatay inay ku kala saaraan shaqadooda mudnaanta ay kala leedahay, taasina ay ku keentay jahwareer iyo qas. sidaa darteed waxaa daraasada lagu sheegay 65% oo ka mid ah madaxdan inay ku adkaato inay dhammaystiraan howlahooda. waxaa ugu badan ee jahwareer ku keena madaxdan waxaa ka mid ah codsiyada kale uga imanaya arrimo badan oo u muuqda inay mudnaan isku mid ah leeyihiin, soo jeedinimo iyo culayska shaqada oo aad u badan. 96% hogaamiyaasha la daraasiyey waxay qireen xoojinta qofku hal arrin diiradda saara inay tahay mid muhiim u ah hogaaminta fiican. qof walba wuxuu haystaa 24 saacadood. dadka intooda badan xor ayay u yihiin siday u isticmaalayaan 24 saacadood. waxaa macquul ah inay jiraan dad 24 saacadood ka khasaaraan adduun iyo aakhiraba. marka aad nolosha ujeeda ka leedahay qiyamna ku hagayo waqtigaaga khasaaraynaysid. cilmi baadhis lagu daabacay Journal of Consumer Research waxaa lagu ogaaday inay dadku fuliyaan arrimaha degdega ah oo aan muhiimad u lahayn in ka badan intay fuliyeen arrimaha aan degdega ahayn laakiin muhiimka ah. sidaynu hore u soo sharaxnay dadka waxaa dareenkooda sidaa darteedna markii aanay si qorshaysan u howlgelin inta badan waqtigooda wuxuu ku dhammaadaa marba wixii ay awoodooda u jiido. cilmi baarayaasha sameeyey daraasad lagu daabacay Journal of Consumer Research waxay sharaxeen in dadku u yeeshaan inay qabtaan hawsha degdega ah si ay markiiba guusha u arkaan. maskaxda bini'aadamka ayaa u samaysan inay nacdo wixii dhib u keenaya oo jeclaato wixii farxad gelinaya. xorriyad dhaqaale iyo nabad ku noolaansho oo keliya uma dadaalo, waxaynu sidoo kale u dadaalnaa inaynu helno waxayna farxad geliya. maskaxda waxay adeegsataa hormoono chemical hormones kuwaas oo fariimaha u kala qaada neerfayaasha jidhka qofka, sidoo kalena maamula dareenada kala duwan ee qofku dareemo. laba ka mid ah hormoonada ugu muhiimsan oo maskaxda una qaabilsan maamulka niyadda waxaa lagu kala magacaabaa socratin iyo dopamine. socratinku waa hormoon ay maskaxdu iyo mindhiciradu soo saaraan. socratinku waa fariin qaado kiimika ah oo la aaminsan yahay in marka cadad saxan maskaxdu jidhka ku sii dayso in niyaddu qofku heer dhexdhexaad ah oo fiican ahaanayso. saynisyahanada qaar ka mid ah waxay kiimikada ku magacaabaan hormoonka farxadda happiness molecule, taas oo ay la xiriiriyaan marka maskaxda socratinka sii dayso dheefshiidka iyo dhiigga dhexdiisa inay sababto farxad iyo kalsooni badan. cunista cuntooyinka ay ku jiraan amino acidska ee loo yaqaano tryptophan waxay ka caawiyaan jidhka inuu soo saaro secrotin badan. cuntooyinka ay ku jiraan amino
amino acids waxaa ka mid ah lowska, kalluunka, hilibka, beedka, digaaga iyo spinachka. Hormoonkan wuxuu fuliyaa howlo fara badan, laakiinse waxay saynisyahanadu maskaxdu isku raaceen in shaqada ugu muhiimsan ee hormoonkan uu qabtaa ay tahay maamulka niyadda. Dopamine-ku waa hormoon kale oo maskaxda soo saarto oo u kala dirto neerfayaasha xidhiidhiya jirka qaybihiisa kala duwan si ay u dhashaan ficilo, dareenno iyo dhaqdhaqaaq. Kiimikada dopamine ee maskaxda dadku soo saarto waxay qayb ka qaadataa maamulka xaaladda dareen ee uu qofku ku sugan yahay. Gaar ahaan, kiimikadan waxay maskaxda sii deysaa marka uu qofku cuno cuntada ay ku badan tahay waxa loo yaqaano amino acids sida cibta, kalluunka, ukunta iyo digaaga. Sidoo kale, waxay maskaxda sii deysaa hormoonka dopamine-ka marka uu qofku xaqiijiyo yool, mid iyo mid weynba. Sidaa darteed, ay saynisyahanadu ugu magacaabeen hormoonka kiimikada abaalmarinta reward molecule. Marka maskaxduna sii deyso kiimikada dopamine, waxaynu dareennaa firfircooni iyo hawlkarnimo. Sidaa awgeed, ay muhiim u tahay inaynu si xikmadaysan hawlaheena u kala jejebino si guuluhu usoo kala horumaraan, sidaana ay ku kasbanno hormoonka farxadda ee dopamine-ka. Hormoonka dopamine-ka maskaxda waxay soo saartaa xilli kasta oo qofku moodo inuu kasbaday, xitaa inuu qofku dood yar soo guulaystay saaxiibkii. Waxaa daraasado lagu ogaaday in isticmaalka maandooriyaashu sababaan inay maskaxdu sii deyso dopamine xad dhaaf ah, sidaana uu qofku kula qabsado maandooriyaasha isagoo markasta door bidaya inuu dareemo waxay maskaxdiisu soo saarisay ee farxad ahaa.